السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. أصحابته وأنا سلام يا دمانتين إن شاء الله. حيدي رجيني عافماد يا عمر درر إن شاء الله. maantana maxaa idin wadaa maanta waxaa idin wadaa dadka jirkoogu engeega yahay amba ay cuncunka leeyihiin ee jirkooga finanka cascas ay kasoo baxaan ayaan raba inaan ka hadlo oo ilaahay subxaanahu watacaala caafimaada ku siiyo. waxaan rabaa waa dawo wanaagsan insha allah qofkaas oon seexanayn oo jirkiiska cunaya cuncunka weeyaan amba ismiidaasiga miidaansi baan malaynaa miidaansi iyo cuncun ayaa la yiraahdaa jirku qofku iska cunayo. marka insha allah sidee baan dawadan u marsanaynaa ayaan horta waxaan sameynayaa waxaa idin tusayaa sidii loo sameynayay. halka waxaa yaala carabiga waxaa crafts baa la yiraahdaa waa celery weeyaan. celerigaasi waan googoynayaa, markaan googooyo waan ridqayaa. markaan soo ridqo insha allah halkan waxaa yaala olive oil baa ii taala olive oil. halkan waxaa yaala khal ayaa yaala vinegar ayaa yaala vinegarka cadaanka khalka nooca doontid baad ka samaysan kartaa amba khalkii kale dhammaan ay khal amba khalka doontid ayaad ku darsanaysaa, laakiin inaad khal ku darsatid weeyaan insha allah. kana waa fiican, waa dawo apple cider vinegar isagana waa dawo, laakiin khal kaste ayaad ku darsan kartaa insha allah. iyo waxaad kaloo ku darsan kartaa halkan waxaa yaala rose water baa yaala, laakiin ma isticmaalino. waxaan isticmaalaynaa qadii aad rabto, aniga ma hayo imika. waxa weeyaan saliidiisa ayaa lagu isticmaalayaa. waxaan ku isticmaalayaa olive oil ayaad ku isticmaali kartaa amba waxaad ku isticmaali kartaa zaytul warad. waxa weeyaan saliida rose-ka weeyaan amba halkan la leeyahay water rose, halkan la leeyahay rose water ayaa waxa weeyaan oil rose weeyaan amba saliida rose-ka weeyaan insha allah. aad bay dawo tahay taasaad ku isticmaali kartaa. haddii aad olive oil haysatin way fiicantay, haddii kalena waxaad isticmaalaysaa oilka waradka ayaad isticmaalaysaa. rooskaas oo kale saliidiisa jiro ayaad ku isticmaalaysaa. waxa weeyaan zayt alwarad weeyaan carabiga zayt alwarad weeyaan kaas ayaad ku isticmaalaysaa. marka si alisa doonto, aniga maanta ma hayo, laakiin waxaan ku isticmaalayaa olive oil. iyadana waad isticmaali kartaa, waa dawo labaduba. marka haddii aad olive oil haysid iyo haddii aad haysid zayt alwarad haddii labadaba waad ku isticmaali kartaa insha allah. markaas sidee baan sameynaa waxa weeyaan waxaan rabaa inaan yaryareeyo, waan soo ridqayaa insha allah. markaan soo ridqo ayaan isku soo noqonaynaa insha allah. waan yaryareynayaa. waad aragteen maalin horaan sameeyey, waa dawo xanuuno badan uu ka dawo yahay, waan kasoo sheekeeyey. macaanka waa ka dawo, dhiigkarka waa ka dawo, xanuuno badan ayuu ka dawo yahay celerigu. marka waan ku dhuubnaan karaa qofku. marka kaasaan maanta insha allah waa dawo weeyaan. qofku hadduu is cuncunayo oo jirka iska cunayo ayuu dawo u yahay. marka insha allah waan ridqayaa insha allah waan isku soo noqonaynaa. marka asxaabay waan googooyay insha allah waan soo ridqayaa insha allah. asxaabay marka aad rabtiin in aad samaysatiin waa inay wuxuu isku dheeli tirnaadaan oo wax walba isla ekaadaan. haddii aad markaad doonaysid inaad marsatid waxa weeyaan marka aad samaysatid horta jirkaad ku meeranaysaa, systemkaad rabtid ayaad u marsan kartaa. haddaad doonto biyiga khaliga waan soo ridqay, waxaan kusoo shubay koobka. haddaad doontid jirka ayaad ku meeranaysaa, labadaba waad isticmaali kartaa, waad cabi kartaa. waxa weeyaan jirku marka is cuncunayo wada casaan oo ku noqdo ayuu ka dawo yahay. markaas sidee baan u samaysanaynaa waxaan rabaa insha allah biidni ilaahi kariim. waa dawo weeyaan insha allah. waa idiin sheegay ma hayo zayt alwarad, ma hayo waxa weeyaan saliida, ma hayo rose-ka, ma hayo. waxa aan maanta ku sameynayaa olive oil, waa dawo olive oilku insha allah. olive oil baan ku isticmaalayaa iyo khal, ay khal waad ku isticmaali kartaa. tira isku dheeli tiran wax isleeg waanaad samaysaa iyo casiirul crafts
waa seleriga sharaabkiisii. marka insha allah waxaan horeysiinayaa insha allah marka qofku jirka markuu jirka cuncunayo wuuna ku meedhanayaa, jirkoo dhan baa casaanaya. waa inaa wax isku dheeli tiran aad ku samaysaa insha allah. waxaan ku shubaya imika olive oilkii. wakaa bismillaah. waxa weyaan inaad isticmaasheen insha allah. waa olive oil. khal baan ku darayaa insha allah. wakaa khalkeena. wakaa 2 malqacdood insha allah olive oilka insha allah. waxay nooray inaan ku darno casiirka asxaabi. wakaasi waa olive oilkii iyo khalkii insha allah. malqaacad kalaan ku darsay olive oilka insha allah. waxaan ku darsanaynaa maxaa craffiska ayaan ku darsanaynaa insha allah. saabay 2 malqaacadood oo craffisana waan ku daray. casiirkan ayaan ku daray 2 malqaacadood. isagana tiro isleeg waa inay ahaataa, wax isleeg aad ku darsataa. waka asxaabey waa inay isleekaadaan. haddaad wax ku darsanaysid 3 malqaacadood oo khala, 3 malqaacadood oo olive oil amba zayt alwarad, amba 3 malqaacadood zayt alwaradka, 3 malqaacadood oo craffiska. sidaasaad u marsan kartaa. system kalena waad u samaysan kartaa. craffiskan oo khaliya waad ku meedhan kartaa jirka intaad ku meedhatid, iyo kan la marsan kartaa. haddii kale kan intaad barsatid jirkooda barsad, craffiskana mar baad ku meedhan, marna intan baad marsanaysaa. markaad jirka wada marsatid waad iska meedhaysaa 5 daqiiqaad ku joogi. marka waad iska meedhaysaa kolkaaba. subaxdiina mar baad marsanaysaa, hameenkiina mar. 2 jeer ayaad marsanaysaa maalintii insha allah. jirkaaga waa xanuun aada u xun, jirka engeega. xayawaanku markuu ku cuno casaan, jirkaaga oo dhan wada casaanay insha allah. sawirka ayaa idin tusin doonaa. markaa saasaad u laaqanaysaa, sidaasaad igu laaqaysaa. markaad saa u laaqdid waxa weeyaan jirkaad marsanaysaa. waxa weeyaan olive oilkii, khalkii iyo craffiskii amba selerigii ayaan ku daray. 2 malqaacadood amba 3 malqaacadood. adu tiro isleeg waa inaad samaysaa, mid walba midda kaleeta la ekaataa. marka insha allah waa kaasi. 2 jeer baad marsanaysaa maalintii, hameenkiina mar, subaxda horena mar baad marsanaysaa. marka insha allah ilaahay waxaa idin weydiinaya caafimaad iyo biidin ilaahay kariim, jirka oo caafimaadna noqda. waa xanuunku waxaan jirka oo dhan oo ku wada casaanaya. waa is cuncunaysaa oo is xoqaysaa. marka wallaahi ma waxa weeyaan xanuun aada u xun weeyaan. laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin, ilaahay subxaana wa tacaala xanuun kastaba dawadiisa uu keenay. marka insha allah waxa weeyaan acshaabtu waxay sheegaysaa in 3 shay la isku daraayo. waxa weeyaan zayt alwarad oo saliida kale ma hayaan yidhi, iyo amba waxaad ku bedelan kartaa olive oil. waa dawo iyadba olive oil baad ku darsan kartaa, iyo khalka sidarka amba khalka kale amba khalkan ay khal baad ku darsan kartaa. khal kaste ayaad ku darsan kartaa. mid kaste oo maad aragtay khala waa isku wada mid. khalku khal un baa lagu ku darso. khalkaad ku darsanaysaa olive oilka iyo craffiska. craffis waxa weeyaan celery yaa la yidhahdaa englishkana insha allah. iskana cab, waa dawo. xanuuno badan beerku ka dawo yahay, waxa macaanku ka dawo yahay, dhiigga macaanka ayuu ka safeynayaa, dhiig karka waa ka dawo, madax xanuunka badan waa ka dawo. aad buu dawo u yahay craffisku. marka insha allah laga faa'iideysto fursadda qaaliga. kole waan ka soo hadlay, xanuuno badan buu ka dawo yahay. marka insha allah asxaabay waad soo dhegeysan kartaa. cajalad horaan ka duubay cabitaankiisii. marka intaad cabitaan ka dhigtid, casiir ka dhigtid, ayaad ku darsanaysaa halkan olive oil iyo khal. 3 shay ayaan isku daray. 3 shay baan isku daray. wakaasi olive oil iyo khal iyo casiirka amba craffiska seleriga sharaabkiisaan isku daray. waka asxaabay saasuu noqday insha allah. laga faa'iideysto oo fursad qaaliya. jirka ha lagu maydho
qofkaa ku maydho subaxdiina mar ha ku maydho intuu jirka wada marsado 5 daqiiqo ku yara joogo markaa suuliga ha tago ha kasoo wada maydho jirkaa kasoo wada maydho waxa weeyaan markuu saa ka dhigo waad marsanaysaa markaad marsatay 5 daqiiqaad ku joogaysaa markaas suuliga galaysa oo soo meedhanaysaa haddana hameennimadaad samaysanaysaa 5 daqiiqaad ku joogaysaa ilaah insha Allah biidin ilaahi kariim caafimaad baan kaaga rajeynaya ilaahi subxaanahu wa tacaala xanuunkaas uu kaa kaxeeyo insha Allah biidin ilaahi kariim waanad mahadsantihiin inaad cajaladaha ii daawanaysiin subscribe-kood ku mahadsantihiin layga insha Allah inaad intaa iga sii badisiin waan rabaa insha Allah aad kori qaadin insha Allah dhammaantiin aad baa idin salaamaya insha Allah anigana waan soo dadaalayaa idinkuna insha Allah waxa weeyaan wax ali waxa nafteeda la jecelahay idinkana waan la jecelahay waa idin soo dadaalayaa idinkuna insha Allah waxaan rabaa inaad kori qaadin insha Allah aad baa idin salaamaya ka faa'iideysta fursadda qaaligaana xanuunka qofka waxa weeyaan jirka la iska cunay amba ciyaalka amba dadka waaweyn qof kasta oo xanuunka ku dhaco wuu marsan karaa olive oilka iyo khalka iyo celeryga amba craffiska intaas isku darsanaya laakiin ahaato tiro isleeg waa inay ahaataa tiro isleeg waa inay ahaataa markaste haddaa 2 malqaacadood haddaa doonaysid 3 malqaacadood tirada waa inay isleeg kaataa mid walba insha Allah ajzaa mutasaawiya waa inay noqotaa wax isku dheeli tiran insha Allah waan islaamiya dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cajalada ku xigta insha Allah